السلام عليكم gabadhan muddo sanad dhan ay maalin soomeysay maalin afureysay sidoo kale habeen walba ay salaatu leel tukan jirtay salaadaha sunnada ahna aad ay ugu dadaali jirtay waxay aad u aqrin jirtay quraanka kariimka waxayna alla aad uga bari jirtay in adeerkeed oo ah wiil aad u akhlaaq badan uu noqdo ninkeeda markii sanadku dhamaan rabay ayay waxay maqashay waray aad uga naxday in adeerkeed ayaa wuxuu doontay gabar kale gabadhii aad ay u murugootay waxay iska dhaaftay soonkii salaadii badneed iyo quraankii ay aqrinaysay muddada sanadka ah waxayna nacday xaalkeeda waxayna isku dhiibtay waswaaska shaytaanka murugada ayaana ka tanbadatay intaas kadib ayay la xiriirtay sheekh wanaagsan kadib ayay uga sheekaysay xaaladda ay ku sugan tahay waxa ay su'aashay sababta keentay isbedelka intaan la eg xaalkeedana uu meeshan u gaaray sheekha wuxuu ku yiri hadalkaaga waxaan ka fahmay in aad xifdisan tahay quraanka ila xusuuso aayada 12aad ee suuratul xaj waxay ka hadlaysaa dhibka ku haysto iyo xalkaaga wa minan naasi man ya'budullah dadka waxa kamid ah qof alla caabudayo asagoo gebi ama cirif ku korsugan haduu helo khayr wuxuu ku xasilayaa cibaadada haday fitna asibtana wuxuu ku gudoomayaa wajigiisa wuxuuna khasaaray adduun iyo aakhiro labadooda oo la khasaarana waa khasaaro cad waxaad aad qof alla caabudo kaliya si aad u hesho waxa aad rabtay laakiin markii aad weysay waxaad bilowday inaad quusato kana fogaato cibaadada alle waxaan kuugu naseexaynayaa inaad ku laabato soonkii salaadii iyo quraankii kaliya ikhlaas u sameey si aad u raali geliso alle kadib ayaad helaysaa wax aad ku farxdo gabadhii aad ay u ooysay istighfaartana waa ay badisay dib ayayna ugu laabatay cibaadadii laakiin markaan waxay u sameysay dar ilaahay wayna iska hilmaamtay in adeerkeed muddo bilaa kadib waxa la yaab ku noqotay in adeerkeed iyo qoyskiisa oo wada socdo u yimaadeen asagoo doonayo iyada kadib markii uu iska dhaafay gabadhii uu doontay markii hore taas uu u dooray aabihiis wuxuuna ku nacay inay ahayd gabar aad u jecel dhaldhalaalka adduunka kuna mashquusho fiirsashada TV-ga iyo dhageysiga heesaha gabadhii aad ay u faraxday markay yaqiinsatay inay cibaadada u sameysay si ikhlaas ah ilaahayna uu ka aqbalay cibaadada waxayna tiri iyadoo aad u faraxsan rasuulka ilaahayow run baad sheegtay markaa tiri alle ma aqbalo camalka ilaa wixii asaga loo ikhlaas yeelo ma ahane fadlan hadaa ka heshay qisadan like saar nagu soo biir oo janaalkana subscribe noo saar aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin muuqaalkan nala sii faafiya